Afar qalad oo wiil kasta ay tahay inuu iska ilaaliyo inta uu xiriirka ku jiro. Xilliga xiriirada jacayl la sameeyo waxa ugu adag waa in qofka dareenkiisa aad haysataa, xiisaha uu kuu qabana aad ku kordhisaa si xiriirka u sii jiro. Laakiin rag badani waxa ay sameeyaan taasi cagsigeeda. Haddaba, wiil kasta oo isweydiinayo muxuu u burburaa xiriir kasta oo aad samayso? Maxay kaaga tagtaa gabadh kasta oo aad jeclaato? Maxaa kaa qaldan? Waxaan kuu hayaa jawaabaha su'aalaha maskaxdaada ka guuxayo. Waxaadna ku soo dhawaataa afartani qalad mid ka mid ayaad samaysaa, waana sababtay gabadha ay jeceshahay kaaga xiisa dhacdo ama kaaga tagto. Intaan u gudagelin sheegista qaladaadkaasi waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka alla garayso. Dhiirigelin ayay noo tahay, dad badanna wuu gaarayaa. Iska taabo lacag kuguma fadhide. Qaladka koowaad ee aad samayso waxa ay tahay qof adag ma tihid. Mar kasta hadalka ayaad la meeraysataa. Hadalkaaga ma caddo, si go'aan leh uma hadashid. Hadalkaaga kama muuqdo qof mas'uuliyad qaadi kara, qof awood badan. Halkani ulama jeedo in gabadha aad kula hadasho hadallo adag oo qallafsan, laakiin waxaan ula jeedaa in hadallada qaar aad la cabsatid. Xitaa marka ay timaado soo bandhigashada dareenka waad la xishootaa, sida inaad ku jirtid iyada booskeeda oo kale. Ma tihid qof hoggaamineed, ma hoggaamin kartid iyada, kama dhaadhicin kartid fikirkaaga. Mar kasta oo ay hadal timaadana waa la gabataa. Waxaad u fikirtaa sida tan: waxaan u hayaa dareen jacayl, sida kuma dhihi karo, ama waxaan rabo uma sheegan karo. Qalad aadan lahayn ayaad dusha iska saartaa, daraadda inaad jeceshahay. Gabadha kama hesho ninkani oo kale. Waxay ka heshaa oo xiisaysaa mid geem adag la ciyaari karo, dareenadeedana jahwareer ku samayn karo. Waa in maskaxdeeda qabsan kartaa, waa in marar badan iyada ay isku daydaa inay ku fahamto. Waxaadna ogaataa, dhammo gabadha fikirkeeda aad qabsatid, waa dhammo jacaylka iyo xiisaha ay ku hayso ku siyaadayo. Qaladka labaad ee aad samayso waxa ay tahay qof daciif oo calaacal badan ayaa tahay. Mar kasta sheeko ay timaado waxaad u muuqataa dhibane. Tusaale, gabadha waxaad uga sheekaynaysaa sheeko gabar ku diiday ama ku qiyaamtay. Laakiin iyada intaad uga sheekaynayso waxay isweydiinaysaa, maxaa loo qiyaamaa? Maxay gabar kasta uga tagtaa? Waxaad isa saaraysaa calaamad su'aal. Laakiin adiga sheekadan aad uga sheekaynaysid waxaad ka wadaa in dadkaasi oo kale aysan noqon. Laakiin dumarka sidaa uma fikiraan. Dhibtaada iyo meelaha daciifka aad ka tahay adiga ha kugu ekaato. Dhibaatooyinka kula soo darsa ha la wadaagin. Gabadhani ma xamili karto dhibtaada umana heli karto xal. Haddii aad is leedahay amay wax kula xalisaa, taasi ma dhacayso. Waxayna u fikiraysaa si cagsigeeda ah. Iyadu waa caadi ha kula timaado dhibaatooyinkeeda, una xali. Laakiin adiga marna qof dumara uga sheekaynin dhibtaada iyo meelaha daciifka aad ka tahay. Haddii aad uga sheekaysana waxa ay ku dhihi doontaa sorry, niyad ayay kugu dhisi doontaa. Waxayna sii qorshaynaysaa qof booskaagii beddeli kara, waayo ma tihid qof adag. Qaladka saddexaad oo aad samayso waxa ay tahay waxaad tahay available. Waqti kasta waa lagu heli karaa, online ayaa tahay. Hadday ku soo wacdo oo message ay kuu soo dirto isla markiiba jawaab ayay kaa helaysaa. Tan waa boring. Goorma ayaa jaanis u siinaysaa inay kaa fikirto haddii mar kasta lagu helayo? Waa inay jiraan waqtiyo lagu heli karo iyo waqtiyo aan lagu heli karin. Sidiisba xiriirka waxa uu qurux badan yahay xiisahana u yeelaa in waqti kooban la isu helayo. Qaladka afraad oo aad samayso waxa ay tahay labiskaaga iska sax. Dumarku waxa ay daneeyaan qofka indhaqabadka leh. Waxaan ula jeedaa qofka nadiifka ee dharkiisu habaysan yahay ay ka helaan. Laakiin haddii markasta hal shay ay kugu arkayso, waxaa dhimanayo xiisaha indhaha. Ogowna waxa xiise geliya indhaha unba qalbiga loo soo gudbiyaa, maskaxdaadana aqbashaa. Labiska waxa uu dhisaa kalsoonida qofka, waxa uu kaa dhigaa qof soo jiidasho leh. Waxaadna u ekaanaysaa qof naftiisa jecel oo daryeelayo. Gabadh kastana nafteeda qofkaasi ay la rabtaa. Afartani qalad mid ka mid ayaa sabab u ah xiriiradii jacayl ee kaa burburay. Haddaba, nala wadaag hal qodob aad uga shakisan tahay inuu sabab u yahay xiriiradii jacayl ee kaa burburay.